subaxnimo wanaagsan soo dhawaada saaka ninkii Abiy Ahmed ah shirkii iigado furmaya waa shirkii Ethiopia ay hogaamin jirto baawarka ay ku lahayd saaka Xasan Sheekh Maxamuud baa ka ciirsaday ninkii Abiy Ahmed ahna wuxuu soo dirsaday matalaad qalbigu ku xiran yahay waxa kale oo barnaamijka iyadana qayb ka ah in badii uu Muuse saxiixay ninkii Muuse Yahuudi ahaa badii uu saxiixay oo lagu hayay sayl isku jirtay 130 kilomitir dadka 20 kilomitir baa loo sheegay laakiin 130 kilomitir masaafadii isku jirtay ee labada dekedood u rabay inay Ethiopia ka siiyana ciidamo 43 kuna baa u soo ruqaansaday iyo 12 doonyood oo Turkish ah iyagoo ballan qaaday ilaa inta Soomaaliya cageed isku istaagayso inay badda ay ka ilaalinayaan Ethiopia iyada taasna si qoto dheer iyada fiidiyow ah ciidankii Turkiga soo ama baxayna waa idin hayay waa ida tusaya waxaan dhacday saaka shirkii iigad baa furmay ninkii Abiy Ahmed ah shalay ergu soo dirsaday oo madaxda iigad kamid wuxuu yiri inta aan shirka waa soo duulaya waa imaanaya laakiin inta shirka aanan imaan ka hor waxaan rabaa Xasan Sheekh Maxamuud inaan qol mugdi isku aragno Xasan Sheekh Maxamuudna waa uu ka biyadiiday taariikhdan dibadii ku celinaya maalmuhu isku eka waxaan xasuustaa ama ummadda Soomaaliyeed inta wax garadka ama inta dabcan siyaasadda aad ugu dhundaloosha ay ka warhayaan 16kii markii aan safiirkii Kenya ceyrinay kaayagana aan la soo baxnay oo markaas Kenya aan badii Xasan Sheekh Maxamuud baa xilliga joogay waa maalmuhu say suugeeyeen Xasan marka uu badda geynayay maxkamadda Hague oo khasab ay ku noqotay uguna Kenyatta inuu yimaado magaalada Muqdisho balse waxba kama aysan bedelin Soomaaliya faa'iido kale ka sii heshay oo markaas waxa noo soo noqotay 16kii hawada Soomaaliya gacanteeda soo gashay markaas isla markaas Kenya way aarsatay waxayna ku aarsatay waxa weeye inay markii Xasan Sheekh Maxamuud iyaguna ay xukunka ka tuuraan laakiin marka laba faa'iido ee xukuumadda Xasan Sheekh Maxamuud ee xilliga ka tagtay in badii la geeyay maxkamadda Hague oo Kenya wada hadal uu kala gali waayay oo qir xaaladii noqotay iyo in uu hawadii Soomaaliya kala soo noqday dabcan dad badan oo dhalinyaro ah waxay ku baraarugayeen 17kii markii la keenay qalabka markii la keenay laakiin qalabka waxa ka horeeyay ogolaanshaha iyaga inaan helno oo gacanteeda ay soo gasho 16kii hawada Soomaaliya xilligaasna waxa dalka madaxweyne ka ahaa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud laakiin Kenyatta waa ka aarsadeen markaas isagana xukunkay karideen maanta culayskii kale uu wajahaya oo nimankii Etoobiyaanka waxay soo bush gareynayaan maamul goboleedyada dabcan hadii aad qormadii Faadi Yaasin aad akhrisay Xaaji Daahir wuxuu ku sheegay Xasan inuusan marnaba ahayn nin badaha iyo bariga Soomaaliya iyo dadka Soomaaliyeedba nin gorgortan ka galiyay inuusan ahayn qadiyadaasna ninku adag cadiifadaasna nin aad ugu fogtahay Faadi Yaasin baa qormadiisa ku cadeeyay tabardarida kale inaan tabardaranahayna Soomaali iyaga halka isdhigay sababtu waa maxay maamul goboleedyadii kuwii ugu waaweynaa ee ugu tunka waaweynaa baa maanta inta waxay la safayeen Ethiopia sida Dani Dibira iyo teamkiisa oo ka mid yahay lafta gareen iyo Muuse Biixi waa saddex maamul goboleed weey oo Ethiopia ay naga haysato halka maamul goboleedka Galmudug uusan wali mowqifkiisa cadeyn ninkii qorqor ahaa ama iyadoo qoraal ah ama iyadoo hadal ah uu sawli cadeyn halka ninkii Ali Guudlaawa ah isaguna iyadoo qoraal iyo iyadoo laakiin shacabka Hirshabeel iyo shacabka Galmudug waa la ogyahay Ethiopia nacaybka heerka ay ka joogan iyagu marka shacabka marba shucuurtoodaba halkana ka arkaa anuguba waana ogahayba ummadda Soomaaliyeed waa ogtahay shacabkaas inaysan jecleen Ethiopia laakiin qorqorna waxa la raacay isna qadiyadiisa cadeeyo iyo Ali Guudlaawe halka Jubaland iyadoo ay qadiyadeeda halka dhigatay si isugu dhaceen 19kana ilaa hadda iyada Ethiopia soo hayaanba qori faraar la isaga hayso Ethiopia aysan saraakiil u soo diri karin ninkii Axmed Madoobe ahaa marka maamul goboleedka kaliya ee maanta xukuumadda Soomaaliya ay ku tashan karto ama mowqifkiisa halka uu cadi ay halka taagan waa maamulka Jubaland weey marka Xasan Sheekh Maxamuud culays buu wajahaya laakiin saaxadda siyaasadda ninkaas wuxuu ku yahay hada joker buu ku yahay marka maanta Ethiopia wuxuu maraya Xasan Sheekh Maxamuud inuu ka ceyrsado shirkii iigad yaa la ceyrsanayaa isoo qora yaa la ceyrsanayaa Ethiopia iyo Abiy Ahmed xagee laga ceyrsanayaa waxa laga ceyrsanayaa shirkii ay awood u lahaayeen iigad yaa ceyrsanayaa waxa ceyrsanaya madaxweynaha ummadda Soomaaliyeed Xasan Sheekh Maxamuud xafidahullah halkaas marka maanta awoodina mar awood lagu sheegay xoog ma sida loo kala xoog weeyahay looma kala xaar weyna sida loo kala xoog weeyahay looma kala xaar weyna waa la kala aqli badan yahay siyaasad baa la isku dilaa marka ninkii siyaasad buu caalamka oo dhan ku tusay Mareykan waa tusay NATO waa tusay
جميع العرب واتوصي إيجاد نوا واتوصي أبي أحمد مركب ما أنت قلبك وحرن جاي الباب يحروي عن أوي الباب يحرى عن أوي شلي تبكي كجد عي هوض الصومالي هذا نوعي قرمي كيوسو جاريان إن ديارة إثيوبيا إيرويز دوانا دي حد جذب كاس سي وضو دقنين اللودري إن لكنسلي دون إن هي لكنسلي دون الشتى جن دولة الصومالي كلامنا قندونتو يدو هشيس اللي قال دونتا قدر أم إمارات أم دولة ذاك يجو هشيس عصب أي هذا يكون اللي قال دونتو سي شعب الصومالي لغة فائدة اسكو صعد كذلك يدي بدأ مركا هالقاس حالة دي مرسا ساكن إنك شركي واجوي مثلات بصادر صدي إنك إسماعيل عمر قال له لصوا علي ويري هلا قالها الصومالية هالقاس حالة دي مرسا حسن ودي ويري قل مجدي يعني أبي أحمد قال لي إن حلال ما نحد بالقطاي فقارها هايس كأنه نكي أبي أحمد أقصد مركا حالة دي مرسا وعرفنا هين دروستايو فيديو هالمر إيدي تصواك وأنا دعوة إذا ما دي تركيا أها oo soo ruqaansaday halkaas iyo lagu hayay iyo sayla ما شاء الله دبع واركسان وعيدمدي بدها تركيا weeye oo si toos ah ugu soo ruqaansaday meeshii Ethiopia damaceed u ahaa Turkayna mowqifkeeda waa cadeysay inay Soomaali ay mar walba ay garab taagan tahay kadib markuu madaxweyne Xashiq Maxamuud oo wiigi hore iyo maalmahan bixiriiriyo toos ula sameeyay ninkii ah Erdogan madaxweynaha muslimiinta ninkii Soomaaliya u taqaano xiriir markuu la sameeyay ballan uu qaaday isagoo nool inaysan Ethiopia taaka kamid ah badda Soomaaliya aysan qaadanin marka 43 kun oo ciidan lagu qiyaasayaa ilaa 41 kun iyo 12 doonyood oo doonyaha dagaalka ah baa lagu qiyaasayaa in halkaas iyo xeebta lagu wareejiyo damaca Ethiopia oo Xashiq Maxamuud uu laad afka kaga dhufto wararka aan saaka idin hayo halkaas daaran yahay laakiin waxa ayaan daraa waxa weeye labadii maamul goboleed ee Soomaaliya ugu waaweynaa sida saddexdii maamul goboleed ee Soomaaliya ugu waaweynaa sida Somaliland iyo Puntland iyo Koonfur Galbeed inay maanta ay yihiin qoora salax Ethiopian ah qoora salax Ethiopian ah oo Ethiopia u qoora salaxayaan way arkaysan wiigi hore waa kan Said Abdullahi Dini oo loo diray laba sargaal oo isagoo sheegay laftii nini saas waxa u foorarsanaya waa kan Said Abdullahi Dini ah وكان دينا كلا وجدان صاحب كيس لفت جرين بوجدان وسون لفتي فضو قاضي لفتي فضو وكان نكي سين لفت جرينها طبعا مركات لبدا أنا بحكي شيء تدد بقى قاب قبيلة مركبة أرنتو قاضي أما موضوع يعقوب إنه الدني ما أرنتو صومالي مريسا مرة دين صومالي تكتنا أنا توتي يا صهرتا إثيوبيان يعني حشق محمود بولالك يا ومدحوينه هي إثيوبيان دين إسلامنا نجمع دحيسه وكفارة يهود أفريقيا ويه قف كستو الصومالي يويل كستو الصومالي وحكولات دردار ما يحويه إن ماشي وأركو إثيوبيا أف يقدم بأكرة در أف يقدم هذا اللي بدأ عودين أورك كنا وواحد سميسا هلك كراهية كوافوف برنامج كان برنامج عندنا كل مدون واحد ذكر عصنا فيديو وانسيشر قرية السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الصومالي يقولوا صومالي أنو راتو مدحوينا يقولوا يستو مدحوينا صومالي يقولوا يستو أوديسا كي كرنقطة الله كديو كي كرنقطة الله كديو أقول سنين يلا نيجي السلام عليكم ورحمة الله تعالى